نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد soo dhawaada akhyaarta aan aad ku jeclahay runtii maantana waxaan sharax doonaa ama waxaan bilaabi doonaa koorso cusub oo khusayso electrical electronic engineering sidaan hor idin sheegaybo waa departmentigan electrical electronic engineering kan ama kuliyadan runtii waa kuliyad aad u balaaran waaye runtii oo halkan lagu soo koobi karin maantana waxaan jeclahay inaan idin soo wadaago mawduuceeno ama koorsadan waxaa la koorsada magaceeda GIS GIS waa koors aad u muhiimsan sida loo sameeyo haddaa rabtid in macnaha tuulo ama caasimad ama xaafado marka rabtid inaan macnaha oo aad design garayso ama koronto aad siisid waa must in macnaha waxa waaye meelaha oo la dhigo sida transformeradii distributionkii iyo wax kasto quseeyo sidee u kala dhigi lahayd ama sidee macnaha waxa waaye loo ogaan lahaa map ahaan waa map runtii maabyada waa la yaqaanaa runtii maabyadan waxay fududayaan tuulada ama qofka magaalka markuu soo galo hadduu mar arko maapka oo quseyso ama waddankaas inuu wuxuu arkaa marka hadduu electrical engineer hadduu yahay meel kasta oo macnaha yaalo distributionkii transformerkii wax alaala qalabyo ama device oo tuuladaas taalo ama iskale caasimadaas taalo inuu arko ayaa marka dhoodii wuxuu ka tixraacaa maapkaas runtii waxyaalaha maapka oo macnaha waxyaalaha waxaa ku mid yahay oo fududeeyo runtii isheeg adiga holaha ama shaqada electrical electronic engineering waa maapka waa midkan hadeer midkan waxa uu samaysan yahay hadeer waxa waaye midkan waaye midka aan samayn doono insha allahu tacaala intaan koorsada ku jirno midkan iyo wax kuwo kala far badan aan samayn doonaa hadda midkan waa symbol waaye waxaana runtii waa waddanka dhako waa midkan waxa waaye wuxuu quseeyaa marka waddanka dhako waaye midkan waxa waaye dhaka waaye runtii caasimadda dhaka ayaa maapka u samaysan waaye midkan hadda ujeedaan waxa yaala horta what is GIS horta GIS ta means waxa lagu wada maxaa waaye markaasi waxa waaye geographical information system waa qaab xab geographical in loo barto waa wadooyinkii dhulkii wixii routedkii iyo meelaha intee webi ah intee bad ah wixii geographic ahaan waa intan waa geographic waaye waxaan waa dhulkaan dhan waaye meeshaan dhan waa border waa xuduudin ama sohdin waa kan ambo sohdintan waa sidatan waxa riidan hatta halkan u jeedaan saa u dhaxmarayso waa calaamadan waxa lagu kasa haday bad tahay ama haday tahay webi waa calaamadaas oo ramsi ah GIS runtii GIS ta waa runtii waxa waaye waa wax aad runtii u easy ah in la barto GIS ka waxa waaye markaasay runtii hadda intaan u jeedaan waa kan hadeer waxa waaye power board system key waa midkan hadda u jeedaan hadda aragti iska markii waxa waaye power board system key magaci kan waaye hadda kana aragti iska markii hadda aan raadino mid kamid ah kan aan raadino iska markii waa soo helayna markaas waa kan hadda aan fiirino jawa kana halkan u yaala asoo ah 15 MVA waa midka waa kan inta ku jira iska markii waa raadinayna marka meeshu dhax yaalo hadhow waxa ogaan doonaa midkaas meeshu yaalo meeshu u jiro distance wixii dhan soo dhow u sameyn lahayn marka hore waxaan barinaynaa markaasay waa jaantuuska ishaxda iyonay fiilooyinka ama waxyaala ramsi ahaan loo isticmaalo horta aan barana marka hore waa hadda kali waxa waaye waxaan kaliga isticmaalnaa kaliya hadda waxa waaye laba shay aan ka isticmaalnaa waa midkan ah BBS kan boundary iyo calaamadan kale aan ka isticmaalnaa calaamadan ah 3 kb line key oo transformer key ayaan isticmaalayna midkan waxaan isticmaalnaa marka union boundary iyo river key
way badan yihiin maabyaalkan waa maabyaal kala duwan waaye hadda maabkan inta quseyso waa calaamadan hadda amalada boundarygii waaye waa xuduudihii ama soohintii waa midkaan waa kasan waa hadda calaamadan waxaa loo adeegsanaysa waa soohinta meelay ku eg tahay waa soohintii waa inta dhan way ku wareegsan tahay geesay ku wareegsan tahay waa kan geeskan gees waa soohintii waa kan halkaan soohintii waaye marka waa soohintii ujeedaan waaye waa ka soohintii waa intaan waa soohintii waa halkaan riidan intaan ah idan waxa waaye waa badii waa riverkii la isticmaala riidan halkaan ku jirana waxa waaye oo borborkii iska ah waa unionkii waaye waa intaan marka aan fahmo waa la isticmaala iyo midkaan haddana waxa waaye keenaha transformerada dhankaan ah midkaan idana sidoo kale inaan barno waa riyooyinkana wax la isticmaala hadhow waxaan ogaanaa marka distanceyada oo transformerada dhigo distributionkii wixii kala dhigo iyana waxa waaye cashirooyin kale aan qaadan doonaa marka hore calaamooyinka aan iska fahmo okay marka waxaan maanta sameynaa marka sidee loo sameeyaa sidee loo abuuraa waxaa jira markaasay personal GIS-ka database iyo waxaa jira markaasay future database-kii yaa sameynaa future database-kii waa leh qaybood waa marka waxaa kamid ah boundary-gii waa midkaan waa boundary-gii see loo sameyn lahaa line-kii see loo sameyn lahaa marka river-kii iyo ama canal-kii waa isku midkii see loo sameyn lahaa iyo waxaa jira markaasay location-kii ama location-ada wixii ay marka ka yaalaan waxana waa location waa kan waa waaye transformerka location-ka la dhigay waa bosses-ka la dhigay waa location-adii waa makaankii ama bosses-kii mid kale waxaan ka baran doonaa substation-kii waa substation-kii meelada la dhigay waa kana substation-kii waa kana waa kuwan substation-adii meelada kala dhigay waa inaan ogaanaa substation-ada waa inaan ogaanaa in meelaha kala dhigay oo ku haboon iyo 3V waa transformerkii line-kii meesha la dhigay ama meelahaas inaan kala ogaano waa intaas marka hore waxaan rabnaa marka inaan macnaha abuurno ama inaan create aan ka sameyno marka hore waxaan tilaabada marka hore qaadayso waxaa kamid ah marka hore waa kan halkaan hoos iska keen marka waxaa leeyahay markaasay personal computerka tagay marka BC da ayaa soo kacsanaya marka halkaan ayaa wax kasta ka caawir doonta waxaa leeyahay markaasay Windows C tag halkaan kiciso iyo intaan waxaa sameynaya marka file sameysana marka folder folderkan ayaa waxa uu bixinaya magaca loo yaqaano hadeer magaca isticmaalana waa dhaka waay marka magaca isticmaalana waa dhaka hadeer isticmaalana mas waxaa leeyahay marka dhaka dhaka BBS _3 yaasaan leeyahay markaasi kadib halkaan aan iska cancel gareyno aan soo kicsano JS kan soo kicsano marka GIS-ka waa application-kan waa software-kan iyo hadda soo kicinaynaa marka waxaan rabnaa marka inaan ka muqaddam ahaan inaan abuurno data runtii datadan uma baahana waxaan sameynaa marka data kale cusub aan sameysanaynaa haddaan sameysanaynaa marka waxaan iska cancel gareynaa data cusub aan sameysanaynaa waxaan leenahay marka waxaan tegaynaa marka halkaan aan tagaynaa connection gareynaa waxaan leenahay marka BS-kii taawo taas wuxuu geeyaa markaasay نسيتك
waxaa la already oo connection garaysay marka waxaan shaqada waxaan qabsanaynaa marka waxaan tagaynaa marka new intaan marka hore waa kana dhaka marka hore waa kana hadeer waa kana kan waaye data waxa waaye future data set waaye markaasi future data set kan marka wuxuu u weydiinaa marka waxa marka ku abuureynaa marka personal GIO ama GIS database waxaana markaasi waxa kamid ah dhaka BBS ka marka hore waa sameeysan waa kana dhaka BBS ki waa sameeysanay waa kan waaye personal geographical data waa haysanaa waxaad sameeynaa marka rudadkii ama wadooyinkii iyo riverkii iyo locationadii waxaa leeyahay marka aan sameeynaa marka waxaan qoraynaa halkan BBS underscore waxaan leeyahay markaasi underscore boundary waxaan leeyahay marka next leh waxaan leeyahay marka aniga hadeer waxaan daatada ku shubi doonaa ama ku sameyn doonaa waa Bangladesh every to Bangladesh aan leeyahay marka next last finish waxaan rabaa marka inaan sameeyo lix haba aan sameynaa markaas kuwa waxaan sameynay boundary aan sameeyay boundary waa soo xidhin dheh maskale waa border boundary marka soo xidhin ama soohin sida loo yaqaano waxaan sameynaa marka waxaan leeyahay marka new takadana waa ilaa lix waaye markaas hadda waxaan doonaa BBS underscore waxaan road aan dhahay markaasi R road next waxaad tabanaya markaasi everest to Bangladesh waxaa leeyahay markaasi next last finish lix waxaan sameynaa markaasi oo ah future data set iyo lix kamid ah future class hadda laba marnaa marka BBS underscore river next every to Bangladesh next finish there new future that hadda waxaan sameynaa marka BBS underscore location location next waxaa leeyahay marka Bangladesh next finish hadda waxaan maroonaa marka hadda afar maroonaa marka laba noo dhiman waxaa markaasi underscore BBS underscore line next every to Bangladesh next finish shan waxaan oo dhimaa markaasi midkii ugu dambeeyay lixaad ah qaybtii future data set BBS underscore substation next everest to Bangladesh next finish hadda waxaan sameynay qaybtii ugu horeysay oo ay ahayd future data set kii ayaan sameynay waxaan leeyahay marka waxa way noo save garay intaan double click dhaa dhamaan oo noo save garay siya marka wuxuu u jiraa marka halkaan noo yaala waa kana intaan oo yaala kadib waxaan sameyn doonaa marka waxaan sameynaa marka future class aan sameynaa future class ayaan sameyn doonaa marka asla halkaan aan sameyn doonaa marka hore boundary soo qabo
iska markii meeshii adee waxaa aad markaas future class hadda waa kana future data cell aadna future class waxaa qoraydana boundary boundary leedahay marka halkan aad tagay marka boundary maxaa waay markaas ama xuduudaha ama seedadka maxaa waay markaas waa line key oo saan line future waay marka hadda markaas line future dooro halkan dheh next finish oo ku sameeyay marka haddana waxaad dooranay marka waxaad doortay boundary haddana waxaad dooranay marka root waa line key waa kana halkan tag waxaa marka new ku dooro future data class على مركزي root حتى جاي مركز root كأم ودوين كا وحواي إذا وحواي line كواي future line كواي نكست له finish وكل ما مركز هذا حاجة بهني إن boundary يو root كي أو future data class كي isoo qabo marka river isoo qabo asxaab si fiican loo socdo haddana waxaan sameynaa marka river cashir aad u muhiimsan runtii waa map dhan inaad sameysid riverka waa riverka asna naftirkiisa waxaa waaye markaasi asina waa future line future-kii waaye markaasi line future-kii waa ama caasimad ama tuulo dhan ayaa waxa uu sameynaa marka location oo map ah waa cashir runtii oo interest leh waaye oo aad u xasaasi leh marka riverkii waa sameynay marka waxaan ku xijinaa marka location key future class location key waxaa leedahay markaasina waa location marka la waxa waaye marka waa mail waaye marka mail maxaa waaye markaas waa bounty waa bartamo location waa in waxaan dooranaa markaas bounty future aan dooranaa marka location kii baan dhamaaday marka haddana waxa waaye marka line waa kana fiiri bbs line kii hala marka new tag future class say marka line da markaas line waxaa marka line kii oo aawi oo meelaha la dhigayo waa marka distribution key waxaa leeyahay marka line underscore 33 kV kilovolt waxaa leeyahay markaas line ka asna waxa waaye markaas waa line future line ka doornaa marka adina line kii waa sameynay ugu dambeeyay waxaan oo dhima markaasay substation key amidkii ugu dambeeyay markaasay future data class key hala markaasay substation key waa substation key isna waxa waaye markaas waa substationada waxa waaye waa bartama ama boota la dhigo waa kale substation key waa boonto asina marka wala min asabta marka hal mar aan yar u jilco aan u sharaxo marka waxa waaye substationada waa kana meelahan waa substationada yaalaan waa boonto waaye bartama yaalaan haddii la dhaho markaas kb line key inta line kan waa line sida line waa laymaha ama bartamaha waa kana inta waa fiir waa kana fiir kuwan waa ninka line kan waa halka line kan inta soo qaad waa line waa line waa markaas intaas waa line kii waa markaas waa kana line laakiin haddii la substation waa bartamo waa meesha la dhigay waa bartamaha meesha ku yaalaan inaan kala ogaana fiican asxaabta sharafta leh waa hadeer runtii waxaan abuurnay daatooyinkii wixii aad ku wanaan sameynay cashirooyinkan cashirkan waxa waaye waa taxan waaye way sii socon doonaa insha Allah taala ilaa aan ku sameeyno waa mapka hadeer mapka waa abuurnay kaliya qaabka soo loo abuuraa waa mapka oo sidoo macnaha waxa waaye wadooyinkii iyo marka hore basic ahaan waa wadooyinkii qaabaha inaad kala ogaatid
kadibna marka hadhow waxa waaye waxaan samayn doonaa markaasay waa mapkan waa kan dhan iswato ayaan samayn doonaa waa kan dhan iswato ayaan samayn doonaa waxa waaye cashirada waxa waaye waa taxano waa isdaba socdaan haddeer maanta waxa waaye muqadamada ama hordhaca ama gobol harka waxa waaye kali waa inaan wadooyinkii iyo wixii inaan nidaamsano hadhow daatadan waxa waaye meel ay noo keedsan tahay waa noo shuban tahay waa save garaysan already waa noo taalaa waa aad ujeedaan marka bs kan samaysa marka personal computerkii iyaan dhex dhignay kadib hadhowdii kiskis markaan u sameyno yaa hal mar waxaan samayn doonaa markaasay mapkii dhan isqabo marka tusaale kasoo qaad waa Somali map ayaan samayn doonaa marka Somali waa korontada dhan meelaha kala yaalan dhan ayaan samayn doonaa hadda waxa waaye kan waa dhaka waaye marka hadeer aad u jeedaan waa hadda qaybta dhaka waaye waa caasimada kali waa hadeer waa caasimada kali waaye markaasay waa caasimada kali hadeer source-ha waa line waxa markaasay map waxa waaye of 33 kv source line of dhaka waaye markaasay dbs systemkii kan hadeer waa projectigan waa kali waa dhaka waaye markaas waxaan samayn doonaa marka hadeer waa dhaka tusaale ahaan waaye dhaka waana hadaad dhaka samaysid meelis waxa waaye waxaa samayn kartaa caasimada muqdisho waa samayn kartaa kali waxa waaye inaad fahantid qaabka hab kale mooyaane magaca maanta waxa waaye qiimo ma sheego hadeer waxa waaye wadanka aan joogno iyaan mar hore waxa waaye tiraciisan samayn doona insha Allah taala waad arki doontaan waxa waaye muqdisho mapkeeda inaan sameeyno tasawirna meesha yaalaan distributionadii wixii dhan inaan sameeyno map ahaan inaan u sameeyno waxa dhow sahlan naqanayso qof kasta inuu hadhow inuu ogaado meelaha map ay yaalaan iyo meel transformerada wixii dhan inuu ogaado insha Allah taala asxaab sharafta leh nala socda aniga waxaan injineer Saadaq Xasan Buu waxaan jeclahay mar kasta luqadda hooy inaan mar kasta wax ka sharaxo electrical engineering insha Allah taala idinkan waxaan rabnaa inaad mar kasta dhiirgelisaan oo haday tahay maana sheerkii like iyo asxaabta kale si gaarsaan runtii aad bay wanaagsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh